wariyayaashan oo saaka gaadhaya ilaa 40 wariye oo ka kala socda deegaanada Puntland ayaa xarunta librariga ee ku taala magaalada Garowe waxa ay ku qabteen shir jaraa'id oo ay kaga hadlayaan dhibaatooyinka iyo waliba tacadiyada loo geysto ama lagula kaco warfidiyanada ka howlgala Puntland dhanka kalena waxa ay ku soo jeediyeen talooyin markaasi ay doonayaan in wax laga qabto arrimahaasi Maxamed Cabdullaahi Cali Kooshin oo saxaafadda ugu horeynba halkaas uga akhriyay shirka jaraa'id iyo waxyaabaha ay kaga hadlayaan iyo talooyinka ay u soo jeedinayaan dawladda ayaa hadalkiisi waxa uu ku bilaabay waxaan halkan ku soo bandhigaynaa dareenkeena ku aadan sida aan uga xunnahay una cambaarayno fal kasta oo tacadi ah loona geysto warfidiyanada iyo xarumaha warbaahinta ee ka howlgala deegaanada Puntland iyadoo aan ka duulayno dhacdadii ugu dambeysay ee 28 bishan Abriil lagu kacay wariyaasha lagu jirdilay laguna burburiyay qaarkood agabkii ay ku shaqeynayeen haddaba ficilkaasi oo ahaa arrin aan qurux badnayn ma jirto ilaa xilligan cid arrintaasi wax muuqda ka qabatay ama warfidiyanada uga garaabtay dhibkii soo gaaray taasi oo aan u aragnay in dawladdu muhiimad weyn aysan u arag shaqooyinka muhiimka ah ee warfidiyanada Puntland ay u hayaan shacabka Soomaaliyeed iyo kuwa reer Puntlandba waxaa marar badan soo noqday in warfidiyanada aan lagu tixgelin shaqooyinka muhiimka ah ee ay bulshada Soomaaliyeed ay u hayaan lagulana kaco waxyaabo aanan qaban ama aysan istaahirin marar badan oo ay warar u raadsadaan xarumaha dawladda sidaa daraadeed waxaan soo jeedinaynaa qodobadan qodob koowaad in baaritaan iyo dabagal lagu sameeyo arrimaha tacadiyaadka ah ee warfidiyanada had iyo goor lagula kaco cid kasta oo arrintaasi loo soo qabtana la horgeeyo sharciga lambar 2 in la sameeyo hannaan cad oo ay ku wada shaqayn karaan wariyaasha iyo dawladda Puntland markasta oo ay jirto shaqo si ay meesha uga baxdo carqaladaha soo noqday lambar 3 in arrintan dawladdu u xusaarto guddi gaar ah oo ka shaqeeya sidii isfaham wanaagsan oo wada shaqeyneed ay u yeelan lahaayeen warfidiyanada Puntland iyo dawladdu lambar 4 in dawladdu warbaahinta madaxa bannaan ku tixgeliso shaqooyinka muhiimka ah ay bulshada u hayaan isla markaana ay ilaaliso xorriyadda saxaafadda ee uu jideenayo dastuurka dawladda Puntland qodobkiisa 12aad sidoo kale wariyayaasha saaka halkaas isugu yimi ayaa iyaguna dareenkooda iyo mowqifka ay arrimaha tacadiyada la xiriira wariyayaasha waxa ay kaga warbixiyeen dareenkooda iyagoo ay wariyaashaasna kamid ahaayeen qaarkood kuwii jirdilka loogu geystay maalintii dhaweyta xarunta madaxtooyada xilli madaxweynaha Soomaaliya lagu soo dhaweynayay halkaasi Cali Cabdicasiis waxaan kamid ahaa wariyaashii xarunta madaxtooyada laba maalmood ka hor lagu jirdilay oo qalabkoodii looga jabiyay runtii qodobadu ka dhawaajiyay walaalkay Kooshin bundhigna u ah in saxaafadda madaxa bannaan si wanaagsan loo shaqeeyo waa arrin aan soo dhaweynayno waxaana dawladda Puntland ee dawladda federaalka Soomaaliyeed baan ka codsanaynaa in tacadiga iyo jirdilka lagu hayo saxafiyiinta madaxa bannaan laga daayo Puntland waxa ka sugeynaa inay arrintii ama dhacdadii foosho xumeed ee suxufiye 20 ka badan gaaray lagu geystay madaxtooyada cusub xilli uu madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya uu safar ku joogay inay wax ka qabato qalab ayaa wali naga jabsan oo dawladda ilaa iminka kama hadlin saxafiyiin ayaa dilan anigu in la hadlayo xataa jug baa igu maqan oo gacanta xataa nabar baa iga soo gaaray gabdhaha kamid ahaa dadkii la dilay haday maanta aan dareenkeena aan muujin barito anaga nagu dhacaysa oo waa wax xoogtay la caadaysanayo marka arrintaas waa arrin runtii aad iyo aad looga yaxiixo in la sameeyo maamulka dawladda Puntland sidoo kale dawladda federaalka ee Xasan Sheekh Maxamuud maamulka waxaan leenahay dhamaantood in arrintaasi ay jawaab degdeg ah ka bixiyaan waayo bulshada ay wariyaashu u adeegaan saxaafaddu waa meesha kaliya ee maxaa la dhahay ay iska aragto bulshada arrintan ayaa ku soo beegmaysa xilli wasaaradda warfaafinta ee Puntland ay wado inay dhaqan galiso xeer ay iyadu soo diyaarsatay taasoo saxaafadduna ay ku biyadiday isla markaana ay sheegtay inuu yahay mid aan u qalmin maadaama aan lagala tashan warfidiyanada iyo waliba ururka saxaafadda Puntland ee MAP Cabdiraxmaan Cali Nuur Soomsad Garowe.